maalin maalmaha ka mid ah naagtan waxay soo iibsatay daanyeer waxayna go'aansatay inay u koriso sida cunug ay dhashay oo kale. naagtan magaceeda waxaa la dhahaa Sandra halka ninkeedana loogu magacaabo Jerry. waxayna daanyeerkan kusoo iibsadeen $50,000. lamaanihii waxay bilaabeen inay daanyeerkii ku quudiyaan masaasad ayna ka taxadaraan noloshiisa. xitaa wuxuu u raacaa maqaayadaha si ay u soo wada caweeyaan. daanyeerkan waxaa lagu magacaabaa Travis. Travis waa mid nolosha ay u kuftay, qof walba oo magaalada ku noolna waa uu jecel yahay. balse dhowr sano kadib Travis waa uu weynaaday, waa uuna qaangaaray taasoo saameyn ku yeeshatay dhaqankiisa. balse habeen waxaa dhacday lamaanihii iyo daanyeerkooda inay baabuur ku safraan, waxayna baabuurkooda ku baakinteen magaalada dhexdeeda. balse waxaa dhacday in qof wadada maray uu caagad ku soo tuuro gaarigii. arrintan waxay zaid u ka xanaajisay daanyeerkii Travis ahaa. xanaaq aawadeed waxa uu gaarigii ka soo baxay daanyeerkii Travis ahaa. waxa uu bilaabay inuu gaarigii ka soo boodo isla markaasna uu dadkii wadooyinka marayeen ka naxiyo. laasa dheer kadib daanyeerkii waxaa loogu wacay booliiska. balse dhacdada cajiibka ah ayaa waxay tahay in daanyeerkan Travis uu yaqaano qof walba oo magaalada ka mid ah oo ay xataa ka mid yihiin booliiska. daanyeerkii Travis ahaa wuxuu bilaabay inuu la ciyaaro booliiskii muddo 2 saacadood ah oo qallaas ah. ugu dambeyn daanyeerkii Travis ahaa waa uu daalay, waxa uuna dib ugu laabtay gaarigii lamaanaha. qallaasii markuu dhamaaday ma uusan jirin qof soo dacweeyay daanyeerkii sababtoo waxay u haysteen inay tahay cayaar oo kaliya. maalintii xigtay Sandra waxaa soo wacay maamulka xoolaha magaalada, waxayna u sheegtay in daanyeerkeeda Sandra uu hadda qaangaaray, dhaqankiisana uu ka sii darayo. waxayna kula talisay inay daanyeerkan ku soo wareejiso, haddii kalena uu khatar gelin karo nolosheeda iyo dadka ku xeeran noloshooda. balse Sandra markay talada maqashay waa ay iska diiday, waxaana ka awood badiyay jacaylka uu qabto daanyeerkeeda. maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacday in ninkeedii Jerry uu geeriyoodo. dhacdadii geerida ee ninkeedii Jerry waxay niyad ku riday Sandra iyo daanyeerkoodii Travis. iyagoo ka soo kabsanayaan dhacdada murugada leh waxay la kulmeen naagtan lagu magacaabo Charles Nash. naagtii Charles ahayd waxay bilowday inay la shaqeyso Sandra isla markaasna ay buuxiso booskii ninkeeda dhintay ee Jerry, sidoo kalena ay xanaaniso daanyeerkooda Travis. inkastuu Jerry geeriyooday balse Sandra way ay soo kabsanaysaa. 4 sano kadib Travis waxa uu jirsaday 14 sano. jirkiisu wuxuu gaaray 5 feet halka miisaankiisana 240 pound. Charles Nash waa mid qayb weyn ka ah nolosha daanyeerka Travis. maalin maalmaha ka mid ah dhan walbaba waxay u jeesteen dhankaas iyo musiibada. guri joogaan daanyeerkii Travis ahaa waxa uu xaday furayaasha gaariga, isagoo go'aankiisu ahaa inuu gaari ka qaxeeyo, balse looma ogolo maadaama uu yahay daanyeer. diidmadaasi waxay zaid u ka xanaajisay daanyeerkii Travis ahaa, waxa uuna bilaabay inuu jijabiyo alaabtii guriga taalay. durbadiiba Sandra waxay wacday gacanyaraheedii Charles Nash. Charles Nash markii durbadiiba timaaday waxay isku dayday inay qaboojiso arrintii, ayna tusisay daanyeerkii Travis ahaa toygii uu jeclaa si ay u qaboojiso dareenkiisa. balse nasiib xumo waxaa dhacday taas cagsigeeda. toygii wuxuu zaid u ka xanaajiyay daanyeerkii Travis ahaa. daanyeerkii Travis wuxuu bilaabay inuu soo eriyo Charles isaga oo dhul ku tuuray isla markaasna ceeji ku qabtay. daanyeerkii wuxuu jirdil ku bilaabay gabadhii Charles ahayd. Sandra markay dhacdadan aragtay zaid ay u argagaxday, waxayna bilowday inay bir madax ula dhacdo daanyeerkii Travis ahaa. balse taas waxba kama aysan bedelin ficilkiisa, waa uuna sii watay dilkii. Sandra waxay soo qaadatay mindi ayadoo madaxa u garaacday daanyeerkii, balse taas hataa waxba kama aysan bedelin. Sandra zaid ay u argagaxday, waxayna ka cabsatay inuu asaga ku soo jeesto. gaariga ayay gashay wayna isku qufshay, waxayna bilowday inay wacdo booliiska. 10 daqiiqo kadib waxaa meesha imaaday booliiska, ayna la kulmeen daanyeerkii Travis ahaa oo guriga dhex wareegayo, isagoo jirkiisana ay dhiig ka wada muuqdaan. daanyeerkii Travis wuxuu isku dayay inuu weeraro booliiskii, balse madaxa ayay xabado kaga garaaceen, taasi oo keentay inuu isla meeshiiba ku geeriyoodo. balse nasiib wanaag naagtii Charles Nash ahayd waa ay ka badbaaday weerarkaasi wuxuushnimada ahaa, balse wuxuu soo gaarsiiyey dhaawacyo aad iyo aad halis u ah. waxa uuna ka goostay wejigeeda, bushimaheeda, sankeeda iyo dhagaheeda. wuxuu sidoo kale ka gooyay labadeeda gacmood. qalina kadib nasiib wanaag waa ay ka badbaaday weerarkaasi, balse waxay noqotay qof aanan waxba arag. sanad kadib naagtii Sandra ahayd waa ay geeriyootay. ugu dambeyn Charles Nash waxay heshay magdhow $4 milyan ah dhaawacyadii u geystay daanyeerkaas awgeed. kana sawirkii Charles Nash kadib qaliimo dhowr ah oo lagu sameeyay, balse waxay weysay indhaheedii iyo labadeeda gacmood. muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. fadlan hadduu ku cajibiyo ku soo bir kanaalkani.